Ku soo dhawow xog waran news, fadlan channelka subscribe saar. Meydka xiddiga kubadda cagta ee Diego Maradona waa in la keydiyaa sababo la xiriira kiis ku saabsan gabar sheegatay in aabaheed uu yahay ayaa lagu yiri xukun ay riday maxkamad ku taala Argentina. Maradona ayaa bishii lasoo dhaafay wadne istaag u dhintay isagoo jira 60 sano. Maxkamadda oo ka falcelinaysa kiis ay soo gudbisay haweeney sheegtay in laga yaabo in Maradona uu aabaheed yahay ayaa waxay amartay in dhiigga hidde-sidaha laga soo qaado ciyaaryahankan. Waxaa jira 2 gabdhood oo ay xaas hore u dhashay kadib markii ay kala tageen. Wuxuu sheegay inuu dhalay 6 caruur oo kale. Kiiskan waxaa soo gudbisay Magili oo 25 jir ah, taasi oo aan ku jirin 6 caruur oo uu sheegay Maradona. Mrs. Magili oo ay qoys kale soo korsadeen ayaa sheegtay in hooyadii dhashay ee la soo xiriirtay 2 sano ka hor ayna u sheegtay in laga yaabo in aabaheed uu yahay Diego Maradona. Muuqaal ay soo dhigtay barta Instagram-ka ayay Mrs. Magili ku sheegtay inay xaq caalami ah u leedahay ogaanshaha haddii Diego Maradona uu yahay aabaheed iyo in kale. Kadib geeridii 25 Noofembar, Maradona waxaa lagu aasay qabuuro gaar ah oo u dhow Buenos. Maxkamadda ayaa 30 bishii Noofembar xukumisay in meydkiisa aan la gubin ilaa lagu sameeyo baaritaanka loo baahan yahay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in qareenka Maradona uu sheegay in dhiigga hidde-sidaha ee DNA ee ciyaaryahankan haatanba la hayo isla markaana aan loo baahnayn in la soo faago meydkiisa. Maradona wuxuu ka tegay hanti dhaxal ah oo ay adag tahay in la qaybiyo, taas oo ay u dagaalamayaan caruurtiisa la og yahay iyo kuwa haatan kiisaskooda geynaya maxkamadda. Geeridiisa kaliya naxdin kama abuurin gudaha Argentina, balse waxay gilgishay caalamka iyadoo 100 kun oo taageero u ahaa ciyaaryahankan ay isugu yimaadeen si ay u xusaan. Fadlan channelka subscribe saar.